kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadraaca fanka oo toddobaadkan marti noogu yahay fanaanka caanka ah cabdulaahi shariif baastow. baastow ayaa maraan kula kulmay magaalada Nairobi waxaan ugu horeyntii wax ka weydiiyey siday ku soo bilaabatay taariikhdiisa faneed. aniga liibaan marka hore aan ku sheego waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho 1956 fanka waxaan ku soo galay ardaynimo anoo arday baan iska jeclaa jiray fanka ka bacdi iskoolka ka bacdi waxaan u wareegay sidaas ayaan fanka ku bilaabay. waa tahay fanka waxaa sheegtay in uu mar kastaba ku lifaaqnaa noloshaada oo aad jeclaydba adigoo caruur ah. goormay kugu soo biday layrta faneed marka? waxay u soo bilaabatay 72 anigoo ka yeesay jirnay degmada Waaberi kooxna la dhihi jiray kooxda Burjiga October. markaas ayaan fanka ayaan aad u jeclaa jiray fanka. bal waxaad wax nooga sheegtaa ka hor intii aadan koox ku soo biirin dareenkaasi faneed sida uu naftaada u saameeyey? liibaan marka aniga hubigaygu ahaayba inaan idaacada dhageysto heesaha dhageysto marka saas baan u jeclaa jiray fanka. waxaad nooga warantaa sidii aad degmada ugu biirtay kooxdeeda iyo kaalintii aad ku lahayd? kooxda waxaan ku lahay kaalin weynaan ku lahaa. marka hees waxaan qaadi jiray lahay geni oo sameeyay yar marxuun Cabdirashiid Nuur Cabey. markaasoo heestii eedu sameeyay heestii eedu marka anaa qaaday sidaas ayaan magaaladii caan ugu noqday. heestaasi eedo iyo sida ay ku dhacday iyo saameyntii ay noloshaada ku lahayd amaba asxaabta kale ee kugu xirnaa adiga ama abwaankaba waan soo laaban doonaa. laakiin markaan waxaan jecelnahay inaad noo dhigdhigtid qaab dhismeedkii kooxda Burjiga October iyo hawlaha ay qaban jirtay. hawlaha waxay qaban jirtay khamiistii degmada waxaa jirjira shirka Liilan iyo Markis iyo Angeles jirjiri. marka khamiistii waxaan lahayn anaga barnaamij lahayn October kooxda laanta October. marka sidaasaan barnaamij aan u heesi jirnay kooxda aniga Muxudiin Amiin Maxamed Baafow Allah u naxariistay Cabdi Naasir Macalin Bashiir Ibrahim Allah u naxariistay fanaani Maryam Maxamed Caseer fanaanin badan aan ahayn oo degmada ka tirsan. marka hawlahaas ayaan qaban jirnay khamiis kasto aniga aan leenahay meeshaas ayaan ka heesi jirnay. waan gartay adigu markaas daa ahaan intee ayaad la ekayd? wallahi markaas aad baan u yaraay adiga 18 meelaasaan jiray. marka aadan fankan u jeclaa jiray marka kooxdana aad ninka ugu yaraan ahaa jiray kooxda. waan gartay marka kooxdaasi Burjiga October ma waxay ahayd koox u dhisnayd degmada ma waxay ahayd koox gaar loo leeyahay ma waxay ahayd koox waxbarasho? faahfaahin naga sii koox ahaan. kooxdaas waxay ahayd koox ka dhisan degmada Waaberi oo joogto u ah degmada Waaberi inay ka heesaan oo degmada waxay yimaada barnaamij ay kasto fuliso ayaan haajirnay. su'aashan kale aan ku weydiinaya waxay tahay Cabdulaahi Shariif Baastow ma xasuusataa heestii ugu horeysay ee adigu aad lahayd ee aad ku luuqayso? waa 74 heesaha Hargeysa ku qayb galay heesta genial lahaa waxaa sameeyay marxuun Cabdirashiid Nuur Cabey yarkii eed sameeyay. bal miriheed wax ma naga xasuusin kartaa marka heestaasi? waxaa la jiray geni raaxada ma goobay gurigay ku nooshahay afartiisa gees baan hadba galin fariistaa waagu igu guduutaa gabal igu gaaftaa milacdii gubaysana geedka ma harsanaya nafsiyo adigu gaargeni waxaa tiradaa ninkan aawadaad go'ay waa inaad gargartaa waad gaada dumaroo hadda seedho gacantana adigoon dhib gaarsiin gadaal igu soo noqo. waa beedkii koowaad. beedka labaad magamoo habeenkii jacayl iga guween baa gaadada isaaroo garbahayga dhaansaday lafahaygu galayo hadba dhinac u guuray gadgadoon igeliya hilbahayga guraya talo waa nin gaariya nimay geeska qaadiya magabada jaceylkiya igu kaa garaangari. wata waa hees aad u macaan isla markaasina gudbinaysa dareen jacayl. dareenkaasi haddii aan kula kaftamo ma mid adiga ku saameeyabuu ahaa mise wuxuu u gaar ahaa abwaankii hal abuuray? abwaankii hal abuuray ayuu gaar u ahaa. aniga markaas ma bagarinayn jaceylkii iyo waan gartay. halkaasi markii ay gaartay himadaadii iyo haybadaadii faneed ee aad ku soo caanbaxday heestaasi geni maxaa ku xigay oo kale oo heesa ah oo aad ku luuqaysay? waxaa ii xigay hees la dhahay Buluburte oo heesa Hargeysa iskuul galna ani iyo Shiiraan Shidaad oo kaalinta koowaad meeshaas aan kaga qaatay Shiiraan Shidaad. heestaas ayaa ii xigtay Buluburte la dhahay 1974 dhexdooda 75 meelaas waa.
بشوف كمان تجينا أقوى وحباسو دمع لقوه بليه ثم فوق من سعركو تركوا ما برديرين أمكي يا هنب على لبا يا والوضع بالرقيتين بشوف كمان تجينا أقوى وحباسو دمع لقوه بليه ثم فوق من سعودكو تركوا ما برديرين بيتنا رقا سيدي أديو سولمان بساتينو جعل ما هبلا هبيني بيركا إيو ودنها إيو إمها قوين قوددا cabdulaahi shariif baastow markii aad soo gashay masraxiyadda weyn ee fanka tiyaatarkii qaranka aad ka heestay heesahaagii kaalimaha ugu horeeya ay galeen bal ma noo suurayn kartaa dareenkaagu siduu ahaa markaas markaan oo hobalada waa beri aan galay 76 iska wax u qabsan 2 sano kula shaqeeyay kabacdi markaasaan hobalada waa beri nool qoray lacag mishaar nool bilaabay markaasaan heesaha hergeli martay ayaan waxaan kaga qayb galay heesta eedda aniga iyo Allah u naxariistay Shamsa Bashiir iyo Seynab Cige iyo yar kale oo yar oo howlad waa bari ah markaas habeenkii Allah u naxariistay wariye waxa joogay MMJ marka kaalinta hawada raadiyaha iyo waxa isla socdaan heesaha hergeli marka waxa uu leeyahay dadkii weynihii waxay leeyihiin bis heesta eedo markaas MMJ waxa uu leeyahay Allah u naxariistay walaalayaal dadweynaha hawada laga xiriirna aan tixgelino baasto beritaan badhigi reedu niga soo diinaya marka wallahi ma sha saan guul weyn aad iyo aad isas ida aan kaga qaatay meeshii hadu afarjiru hoyadi iyo wahaya hadu afarjiru hoyadi iyo wahaya abakuma udhadi idakuma adareeshe kulbikula hadada hoyadi wahaya hadu afarjiru hoyadi wahaya abakuma udhadi idakuma adareeshe kulbikula hadada